booliiska galmudug gaar ahaan qaybta miino baarista ayaa maanta qarxiyay miino ay maalin ka hor ka soo saareen gudaha magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug waxaana goobjoog ahaa maayirka magaalada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole taliyaha booliiska maamulka Galmudug Cabdicasiis Yuusuf Aadan Dhagabadan taliyaha xigeenka booliiska qaybta gobolka Galgaduud Cabdi Maxamuud Maxamed taliyaha booliiska qaybta miino baarista Galmudug Maxamed Cabdi Maxamed waxaana miinada lagu qarxiyay duleedka magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug taliyaha qaybta miino baarista maamulka Galmudug laba xidigle Maxamed Cabdi Maxamed ayaa ugu horeyn baa ka faalooday sida ay u soo saareen miinadaani iyo cidda ku soo wargelisay intaba halkan taala ilaahay baan ugu guuleeyay inaan ka badbaadin nafteena iyo nafta ummadda Soomaaliyeed waxayna ay ku jirtay meel wada ku soo fuushay laamiga marka ilaahay baan hadda iskale aan ummadan ugu badbaadinay anagu nafteena aan iskaga badbaadinay sidoo kale waxa goobta ka hadlay taliyaha booliiska Galmudug Cabdicasiis Yuusuf Dhagabadan waa kan asagoo arintaasi ka hadlaya miinadan anti taangiga ah oo kor taaganahay waxa laga soo bixiyay meel laamiga u jirta 3 tilaabo oo magaalada bartamaheeda ah jidka laamiga oo isku xira Soomaaliya oo dhan meel 3 tilaabo u jirta wali wada kala ka leexatay ku jirtay ilaahay mahadiis wiilal dhalinyaro ah oo tuubo biyood meel ka qodanaya ayaa arkay saraakiisha booliiska u soo sheegeen annaguna waxaan u dirnay laanta miino baarista iyo qaraxyada oo horay loo soo tababaray waana ku guulaysteen watan hartaala way soo bixiyeen waxay meesha ku jirtay qiyaasii ilaa 30 sano intaasi kadib ayaa waxaasna goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole kana soo arintaasi isna ka hadlaya dadweynaha waxaan u sheegaynaa miinooyinkan ee waxalaadiya ay ku jiraan deegaamada dhan way ku jiraan marka waxa la rabaa sida wiilashaas arkay oo kale oo isla markii biliiska waxay inta dadka meeshii ka celiyeen ay biliiska wargeliyeen marka sidaas oo kale waxa la rabaa qof walba markuu arko waxa inuu isla markaas uu la xiriiro oo qaybta ku shaqada leh uu la xiriiro oo dadkana laga celsho marka waa mahadsantiin aad iyo aad u mahadsantiin cid kasta oo barnaamijkan ka qayb qaadatana uga mahadcelinayna waxyaabaha qarxana meel kasta lagu arko in dadka loo soo sheego lagana fogaado ciidan loo tababaray hadda noo jooga oo waxaas oo aad u yaqaan oo meeshii jooga inta ugu taga ku soo qarxinaya marka waxa la rabaa in ciidankana la soo wargeliyo lagana fogaado oo soo qofku markuu arko asoo inuu qaado lama rabo meesha uu ku arkay inuu uga tago oo dadka inta u yeero oo meesha ciidanka la waxa la rabaa laakiin qofka duu ilaa anaas soo qaaday waxa laga yaabaa qaadidaas qaaban loo qaadina jiray baabuurka saas loo saaraa jugtaas inuu ku qaraxdo waan dhacdaa inuu ku qaraxdaba ciidamada booliiska gaar ahaan qaybta miino baarista maamulka Galmudug ayaa dhowr jeer hore soo bandhigay miinooyin ay ka soo bixiyeen gudaha deegaanada maamulka Galmudug Ismaan Maxamed Axmed telefishinka caalamiga SAF TV Cadaado.